وعنا wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada afar waxyaabood ama afar shay oo naag walba ninkeeda inay ka hesho jeceshahay. fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe le channelka, like-tana nagu dhiirigeliya lana sii wadaaga linkiga YouTube-ka asxaabtiina. fikirkiina hoos noogu reeba commentiga sida u aragtaan barnaamijka. aan ku bilaabo qodobka koowaad ee xaaska ama lamaanaha waxay ka rabaan ninkooda inay dhageystaan oo u dhaganuglaadaan marka ay la hadlayso ama arrin kaga sheekeynayso, waayo dumarka inta badan waxay jecel yihiin in aad dareen gooni ah siiso marka ay kuu sheekeynayso oo ay dareento sida kuugu socoto mawduuca ama barnaamijka kaaga sheekeynayso, sidoo kalena aadan ka dhaxgelin xitaa hadalka ama barnaamijka ay kaaga sheekeynayso hadduu yahay mid qaldan ama mid kugu socon ee aad sugtaa inta ay ka dhameysanayso hadalka, kadibna tartiib ugu sheegto qaladka ku jira hadalkeeda adigoo waliba habsan ugu sheegaya. qodobka labaad, lamaanahaga waxay ka rabtaa inaad siiso habeen u qaas ah oo loo bixiyay habeenkii xasuusta ee la hasaaweeyo oo la xasuusiyo xilligii la soo wada bilaabay sheekada ee daawada. xitaa haddii ilaah qoyska ballaariyay oo wax idin siiyay, ogow xaaskaaga inay weli rabto in aad dib u xasuusisaa habeenadii shukaansiga oo aad samaysaan ama aad wada qaadataan habeenka deydka ama habeenka hasaawaha oo laga sheekaysto waxyaabihii la soo maray iyo waxyaabihii laga kuulgaaray nolosha. qodobka saddexaad, dumarka lamaanahooda waxay jecel yihiin ama waxay ka rabaan inuu u muujiyo jacayl iyo kalgacal dareen leh, ama markaas isa soo guursada ama ha ahaato xaaskaagii muddo wada nooleedeen oo ilaah wax kaa siiyey, waa isku mid. waxay kaa rabtaa in sidii aad kalgacalka ugu muujin jirtay xilligii shukaansiga ama hasaawaha si la mid ah aad ugu muujiso dareensiisa mar walba sida u jeceshahay xaaskaaga. waxaa kaloo ogaataa daawade inaad ka dhigato saaxiibkaaga wax walba nolosha ku soo mara kala sheekaysato, waana waxyaabaha kalsoonida sii kobciya. wayna jecel yihiin dumarka marka aad saaxiib ka dhigato, ama ha ahaato dhacdooyin aad la soo kulantay intaa ka maqnayd ama ku qarso arrimo sir ah, dhankii ahaataba u sheekee oo ka dhiga saaxiib. qodobka afaraad, xaaskaaga waxay kaaga baahan tahay inaad u riyaaqdo. marka aan leenahay u riyaaqid waxaan kala jeedaa inaad boogaadiso, tusaale ahaan muuqaal ama labis qurxoon oo aad ku aragtay, ama raashin macaan ama naqshad guriga ay hagaajisay ama bedeshay. dhan walba ahaataba inaad u riyaaqdaa waxay ka ciyaaraysaa qayb lixaad leh mooralkeeda, wayna sii dhiirigelinaysaa waxa ay qabatay. dhanka kale daawada waxaa lagaa rabaa in aad cafiso marka qalad kaa samayso, waayo marka aad cafiso iyadoo qalad gashay waxay horseedaysaa inay is ogaato kana xishooto in qalad noocaasoo kale mar kale ay gasho. ugu dambeynna waxaad daawada ogaataa inaad ka shaqayso in mar walba muuqaalkaaga iyo jirkaaga dhistaa, waayo xaaskaaga way jeceshahay marka muuqaalkaagu qurxoon yahay. sababtu maxay tahay? waxayna jeceshahay inaad mar walba dumarka kale nimankooda adiga ka iftiimayso, waxayna jeceshahay inay kugu faanto oo lamaanaheeda ama jaceylkeeda ama ninkeeda uu noqdo mid ka dhex muuqda quruxdiisa ragga kale. waayo waxaa la yidhi haddaad rabtid naag inaad aragtid ama qoys, ninka ka soo baxaya eeg, ninka ka soo baxaya muuqaalkiisa waxay ka turjumaysaa wanaagga qofka dumarka ee lamaanaha uu la nool yahay. intaas ayaan ku soo afmeerayaa afar shay oo naag walba ka rabto ninkeeda. intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa kulanti dambe oo xiise leh.